بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنتي wanaagsan walaalayaal meel kasta oo daafaha adduunka ka joogtaan inta hadda jimcuhu uu soo galay ee jimcahu tahay jimca mubaarak inta hadda waagu uu bariyay iyo inta gelinka dambe maraysa insha Allah taala waxaan idin qadimayaa jimca mubaarak walaalayaal ku soo dhawaada qisada walaalkeen Dr. Maxamed Cabdi Jabbaar iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalkeen oo inooga waramay qisadiisa la xidhiidha caafimaadkiisa insha Allah taala laba qiso ayaynu ka soo deyn doonaa walaalkan waxa kaloo jirta walaashin Kaltuun Umar oo iyaduna insha Allah taala qisadeedina la soo wadaagi doonta waynu ka sugayno waxaan dib bilaabi doonaa qisada koowaad walaalkeen Dr. Maxamed Cabdi Jabbaar wuxuu yiri waxa aan watay baaskiil wuxuu ku noolay dabcan wadamada qurbaha baaskiil ayaan watay kadib baaskiilkii ayaa meel biyale igula siibtay waana ka dhacay waxaana ka jabay garabka dhinaca midig gacanta midig garabkeeda ka jabay waxaan dareemay xanuun aad u weyn iyo tabar darri waan awoodi waayay inaan kaco markaas ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ii sahlay inaan gacanteeda bidix adeegsado oo aan telefoonkayga la soo baxo kadibna aan la xiriiro ambalaaskii ayaan wacay waana ii yimaadeen qoladii ambalaaskii waxaana lay qaaday dhinaca isbitaalka wuxuu markii caafimaadkaygii ay darseen dhakhaatiirtii ku takhasustay lafuhu waxay ii sheegeen xaaladaydu inay aad u xun tahay oo caafimaadkaygu waqti dheer u qaadanayo oo markii xaaladaha caafimaad ee sababaha sida ii soo gaadhay iyo kiisaska noocan ah ee lafuhu markii qaabkan u jabaan ay ii ka sheekeeyeen ay yiraahdeen muddo ayay wuxuu marka hore loo baahan yahay jirkaagu inuu soo kabto kadib baa qaliinka lagu samayn doonaa bay yiraahdeen kadib waxaan dareemay noloshaydii inay istaagaysa xaaladeedii noloshu oo aan shaqaysan karin xataa wuxuu yiri shaqada iska daayay waxaan u seexdaa dhinaca midigta waxaan ogaaday dhinaca midig xataa inaan u seexan karin hurdo aan ladaynin wuxuu yiri waxa ay soo wajahday nolol adag qurbahana waa taqaanaa rafaadkooga iyo qofku inuu halkan u baahan yahay aad iyo aad baan u murugoday yiri dabadeetana anigu muruga halkaa maraya ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu igu ilhaamiyay yiri in aan qabsado saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku saliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahna subhanahu wa ta'ala waan bariyay wuxuu yiri waxooga kadib waxa igu soo noqday dhakhtarkii oo si fiican u soo darsay sawirkii X-ray-ga ahaa ee laga qaaday dhakhtarkii ayaa wuxuu yiri isagoo wajigiisu farxad ay ka muuqato ii soo galay oo dhoola cadeynaya qoslaya kaas wuxuu yiri you are so lucky aad baad u nasiib badan tahay xaaladii aan ku sheegnay ee aad ka u darnayd waad ka fiican tahay waayo garabkaagu kama jabna qaybta movementka samaysa qaybta dhaqaaqa samaysa kama jabna gacantaadu saas awgeed muddadii aan filaynay way ka yaraanaysaa insha Allah taala isaga insha Allah taala laakiin way ka yaraanaysaa buu dhakhtarkii dabcan in aan muslim ahayn buu ahaa laakiin muddadii way ka yaraanaysaa buu yiri waxaan qaadan karaysaa 40 days around bil iyo 10 maalmood ay qaadan kartaa buu yiri wuxuu yiri alxamdulillah raja ay gashay rajadu waa naxariis waxaan dareemay buu yiri qoostii in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga farajaday dabcan wuxuu yiri caafimaadkaygii waa la tacaalay muddadii bil iyo 10 maalmoodana way ii dhamaatay waxaan marba exercise sameeyaba oo aan gacantii kala bixbixiyaba maalintii 41 maraysay buu yiri maalmood waxaan awood u yeeshay inaan baaskiiladeedii dib u kaxaysan karo
noloshaydii dib baan u bilowday buu yidhi shaqooyinkayga dib baan u bilowday xaaladeeduna alxamdulilah meel fiican ayay maraysaa buu yidhi walaalayaal insha allahu tacaala maanta khamiis bay ahayd caawa waa jimce oo waqtigeedaan isku baraarujin jirnay badinta saliga nebiga sala allahu calayhi wasalam insha allahu tacaala qisada labaad ee isla hadda aan soo gelin doono waxaanu kaga hadli doonaa qisadii xaaladda caafimaadka xaaskiisa dr maxamed iyo arrin culus oo soo wajahday iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu farajaday biidni illaahi tacaala walaalayaal intaanu barnaamij kale iskugu imanina barnaamijka labaad ee soo socda insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah alladii laa tudiicu wadaa'icahu fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد